gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacyaasha ee Soomaaliland Cabdikariin Axmed Maxamuud Xiniif oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka jawaabay eedeymo maalmihii u dambeeyay uga yimaanaya xusbiga mucaaradka wadani gaar ahaan mas'uuliyiinta xusbigaasi waxaanu gudoomiyuhu eedeymahaasi si adag isagoo uga jawaabay uu yiri shalay rag badan oo halka ka hadlayay kulliyiinka inay joogeen kulliyiina ma xumaan iyo ma xumaan inta uu baa jirtay markii xilka hayeen waxaan ku muuqdaa xilka markii hayeen dib u muuqan laakiin markaas laga rabay waxa soo qalday hadii aanu markaan xukuumadda ka tirsanaa ama maano khaladkeedu uu muuqan waayo labada midba uu muuqdo maraada gareena markaan dibadda ka joogana labadaba ay muuqdaan abaar iyo caws duwan uu muuqdo wanaagga uu muuqan waayo ceeb ku tadabnimada ceeb ku qofnimada kamid ah rag lahaa musabix hatta madaxweynaha musabix haddii aanu talin garanaynin annaga hameeyada heerka qosolin baan kaga jawaabi karaa wax kale kaga jawaabo karan isku da maaha isku aqoon maaha isku aragnimo maaha isku siyaasad maaha isku ayni maaha isma soo gaarin isma leeka meel ay iska soo gaari karaan ma jirto waxa doonaysaa rito umadana maanta ma joogno iga qora haddii arkayno arkay weli kuwaasoo wadani fitr faatiro qaaday ومدة ما كتوري وإله الربي حتى أركي ونقاركي وفنت الغاطر وقاري وحن إليش لابد من هيك بيجسنا مدة ما كتوري وإله الربي حتى أركي ونقاركي وفنت الغاطر وقاري وحن إليش لابد من هيك بيجسنا إذا هذا الكيس وتقدمي عبدكرين أي واحد ودليل برامجك تبليغ السياسي ودان aqoon yahanada Professor Ahmed Ismail Samatar iyo sidoo kale Professor Ali Khaliif Galeed waxaanu tilmaamay in aqoon yahanimadu aanay noocaas ahayn hadii aqoon noqdo wuxuu wada marka dib u hadalkiisa ugu dambeeyay sidoo ninka jirta hadii reerba leeyna dunyada hadii reerba la xaq naga maqan hadii reerba la wax naga maqan kaas aqoon soo kordhiyay oo inta yaqaaneen oo inta gaari أقول تسمع حكم الله بجارنا ولا كراهه كان لما أقول كراهه واحد إنه واحد أريد من أي قال أنت تدري ليه طبعا أنت اللي هو قراهنا أنت ما شفتها أنت اللي هو قراهنا وهو رمضان فريد يقول حياة رمضان وده الناس يشتري يشتري وأنت اللي هو قام يسوق كأنه حضور أنت مشريين تدري ليه ما يقول بصوم مرة عام وصل أنت ليه ويريد كيسين يخرج كيسين وكل خطين هتقول غير غيرنا وحنا غير مكان ليش يا أقول شكري يا غير فيها أنا بصور معي حتى لا غير من هنا قلنا إحنا على الشيخ مصطفى قلعة ولماذا طار كبيرة طار بان كونه هي أنت أقول يوم واقعنا وحنكهر لي أقول لك هذا الشخص يقف كما هذا كل يوم كواها يقولك سيدو أكره رغمية وكره الغسيط مركيه كل بيين لو يمي إن لا شقيني يمك سيدو أكره رغمية وكره الغسيط ده شقي سكول عاي مركانه كو رغمية قرمين يقوم بكار لي إن كان أقومتي كنت واحد كورت تحافظ بكورت وخضر إسماعيل محمد خضر لمبار وركم مقبهية عن قبل داستون فرتي بهرجيزة